qaar ka mid ah bulshada ku nool deegaanka Indhabiraale oo ka tirsan degmada Saylac ayaa ka mahad celiyay dhar mucaawina ah oo ay soo gaarsiiyeen gabdho muxsiniina oo u dhashay gobolka Nisalel isla markaana degan magaalada Toronto ee caasimadda cariga dalka Canada. deeqdan dharka oo u badnayd huga caruurta iyo haweenka ayaa waxa deegaanka Indhabiraale soo gaarsiiyay marwo Saynab Saban Jibriil oo iyadu ka wakiil ahayd haweenkaasi waxaana ka mahadnaqay qaar ka mid ah haweenkii ka faa'iideystay walow ay sheegeen in aanay kafayn karaynin baahidooda ku aadan huga la xidho waxaanay codsadeen in loo soo kordhiyo haweenkaasi ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa bal waxaan u mahad celinaynaa hablaha noo soo diray dharka magaalada Toronto nooga soo diray imikana wixii uu na soo gaaray waan qaadanay uu na gaari waayay waxaan doonaynaa inaan noo soo biiro oo si naxariis lana noogu soo biiro waxaan nahay dadkii abaaru xoolaha ka dhameeyeen deegaanka Indhabiraale waxaan doonaynaa inaan dharkan noo soo biiro oo si maanta waxaan u mahad celinaynaa qarbi Toronto ka soo diray salaam weyn baan u diraynaa waxaan ku mahadsannahay qarbi Toronto ka soo diray dharka dadkii abaaruhu aafeeyeen abaaruhu xoolaha ka qaadeen baan nahay inaad na soo caawidin inaad garabka na qabatiin inaad na soo gargaartiin dharkiina uu na soo gaaray si maasan baan iska qaadanay naguma fuleen noo soo biirsho ilaahay iyo annagaba ilaahuna wal caafi ilaahuna nabadgeel inaguna mahadsanidin waxa aad noo soo dirtaan wax ku mahadsan oo kale inaad noo soo dirtaan waxa kale oo isaguna goobtaasi hadal kooban ka soo jeediyay Caaqil Xasan Muuse Indhabiraale isagoo u mahadnaqay gabdhaha muxsiniinta ee deeqdani soo gaarsiiyay sidoo kalena baaqayla dhaana ku diray in loo soo gurmado dadka ku dhaqan deegaankani waxaa salaamaya intan deegaanka ee dhibtii ay ku dhacday waxya laga gargaaray laakiin aan wala helin buulasha halkaa ku dhisan waa baraka dumarkii ku jiray baan ka soo ururinay sidaa darteed abaar xunna way dhacday waxaan maanta kale oon sheegaynaa inna noo soo biiriyo wixii hore wuu gaari waayay hana noo soo biiriyo anoo Xasan Muuse Faarax Indhabiraale ku magac dheer odayaashii waa kuwan inamadii waa kuwan waxaan kaloon salaan diiran u tabinaynaa Saynab Saban Jibriil oo na soo gaarsiisay iyana ilaahay mahadi wariyaha Maxamed Daahir Awaare ha noolaado waxaan kaloo salaan u tabinayaa odayaasha beesha iyo dumarka halkaa hoos fadhiya buulasha iyaguna ha noolaadaan salaanta dambe waxaan haddana salaamaynaa wasiirka maaliyadda Samsam Cabdi Aadan xilka loo dhiibay iyaan ku hambalyeynayna wasiiradda sharafta leh horeyna waxbay u qabatay waliba gobolka Sale aad iyo aad ugu qabtiyay cadaalad ka shaqsiga cadaalad ahayd war ma Umar Abdul Qadaan baan u ka soo eegin ma Umar ba ha noolaato gabdhaha kurata ha noolaadaan kuwa laga dubaya ha noolaadaan waynaga awlada arkay dhulka taswiirtiisa balsaaw eega wax xoola ka qaadaan iyo wuxuu dad ka qaada ma jirto nin kasta oo wax noo soo tabinaya ciduu doon hay'adda doonta ahaatee iyana waa sugaynaa salaam calaykum bulshada ku nool deegaanka Indhabiraale ayaa la daala dhacaysa diifta abaar ba'an oo haleeshay xoolihii iyo duunyadii ay dhaqanayeen inkasta oo uu roobkii gugu xalay ilaa habeen hore ka curtay deegaanada xeebta waxaanu si wanaagsan u biyo dhigay deegaano ay ka mid yihiin tuulada Aashacado Ceelgaal Laanta Marohda iyo deegaanka Jiri